dugsiga hoose dhexe Al-Buqaari oo ka mid ah iskuulada ugu faca weyn ee ku yaala magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ahna iskuul shaqeeya 5 maalin iyo waliba sidoo kale Khamiista iyo Jimcaha iyadoo 5 maalin ay dhigtaan arday barata dugsiga hoose iyo kan dhexe halka Khamiista iyo Jimcaha uu bixiyo maadooyinka kala ah caafimaad, public office speaking iyo luqadda Ingiriiska oo dhamaantood uu ku bixiyo si lacag la'aan ah. iskuulka ayaana ka mid ah iskuulada ugu ardayda badan ee ku yaala magaalada Beledweyne xilli aan booqasho ku tagay isla markaana ardaydu ay duruus u socotay ayaa jawiga waxa uu ahaa sida tan. Until legs. She added. That is not. هاي اللي احنا نقول في تامر. هاي اللي احنا نقول في تهال. اللي احنا نقول في تيلابو. نقول في تسدح. نقول في تعافر. نقول في تشان. نقول في تيلح. نقول في تدوبو. نقول في تسديد. نقول في تسجال. نقول في توان. كل واحد لحظة يصدع كل طلاب ولا فرتنية لا قيبي لح نمبر لقول في اللح أوكينا اللح مجرى لا قوي وهل واحد كله فتاة لح ما إنس لح تجرى ما قوي وصدع دان نمبر كان قد كاللوات إن صوت الجيار ومحاكور مرينا قد كاللوات صوت الجيار محاي لغطي صدنية تضبط نمبر لح لو قفت صدنية تضبط كينا مجرى نمبر صوت ويناني ما غواي واللح وحد كله فتاة لح صدني اللح لقدري تضبط لح كدر ما غواي وهل أفرتان صدق نمبر لقول نفتي لح وكينا يتطبني أفر مجرى نمبر صد ويناني ما غواي والله qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka Al-Buqaari oo Jubbaland TV la hadlay ayaa ka warbixiyay fasalka ay iskuulka ka marayaan iyo inta maado ay qaataan iyagoona u mahad celiyay waalidiinta iyo macallimiinta la garab taagan waxbarashada. Filis Maxamed Ali Saciid waxaan dhigtaa iskuulka Al-Buqaari waxaan ka soo bilaabay koobaad haddana waxaan ahay toddobaad waxaan dhigtaa 7 maado waxaan u mahad celinayaa waalidkayga iyo macallimiintayda. Ana Cabdullaahi Xuseen Daaya iskuulka Al-Buqaari dhigto waxaan ku soo bilaabay galaaska koowaad haddana waxaa galaaska toddobaad waxaa qaataa 7 maado waxaan u mahad celinayaa waalidiintayda iyo macallimiintayda iyo maamulka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Nuur Axmed Xasan waxaan dhigtaa iskuulka Al-Buqaari waxaan ka soo bilaabay koobaad haddana waxaan marayaa toddobaad waxaan dhigtaa 7 maado waxaan u mahad celinayaa hooyaasha aabayaasha iyo macallimiinta igu soo daashay oo intaas wax soo bartay. waxaan dhigtaa iskuulka Al-Buqaari waxaan ka maadooyinka waxaan ka soo bilaabay galaaska koowaad waxaan marayaa maanta galaaska toddobaad waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa macallimiintayda waxaan ka bartaa. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga oo anigu ku bilaabay Saabiriin Daawud Cali waxaan dhigtaa iskuulka Al-Buqaari waxaana ka bilaabay fasalka koowaad haddana waxaan salaamayaa macallimiintayda iyo waalidkayga waxa ay soo baray iyo midka kaamileysta. Assalaamu calaykum magacaygu waa Cabdinuur Cafaara Cafax Fidow anigoo dhigta iskuulka Al-Buqaari waxaan u mahad celinayaa maamulkayga iyo macallimiinta iyo waalidiinta isoo wax bartay dhammaan waan salaamayaa maadooyinka aan bartana waxaa ka mid ah waa 7 maado ay ka kooban yihiin. Ustaad Cilmi Maxamuud Jimcaale oo ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga Al-Buqaari School iyo Ustaad Maal Cabdullaahi Xasan oo ku hadlay afka macallimiinta guud ee iskuulka ayaa sheegay in ardayda ay baraan ilaa iyo dugsi hoose dhexe macallimiinta yalana ay dhigaan kuwaasi oo khibrad u leh wax fahamsiinta ardayda. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maxamed Faransa TV-ga Jubbaland runtii inuu iskuulka Al-Buqaari maanta nagu soo booqdo aadaan kaaga mahad celinaynaa. macadka Al-Buqaari waxaa ka socdo waxbarasho dardar aad u wanaagsan leh sanadkan waxaan ku guda jirnaa sanadka 2020 sana dugsiyeedka runtii si wanaagsan noogu bilowdo waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan noogu dhamaan doono
waxbarashada sanadkan si wanaagsan ay ugu socotaa iskuulka Al-Bukhari sanadkan waxaa jooga iskuulka macallimiin aad u da'yar una hawl karsan una diyaarsan si ay u soo saari lahaayeen arday da'yar oo Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa sanadkan inuu si wanaagsan noogu dhamaan doono sidoo noogu bilowday si ka wanaagsan noogu dhamaan doono maadaama arday aad u da'yar iyo macallimiin aad tayadooda ay wanaagsan tahay oo qaarkood heer jaamacad inta badan heer jaamacadeed ah waxa dugsi sare ay ku jireen sanadkan wax ka dhigayaan macadka Al-Bukhari iskuulka Al-Bukhari runtii aday aan faahfaahin kooban aan ka siiyo waxa ay dugsiga dhexe fasalka koowaad ilaa fasalka 8aad ardayda dhamaysa fasalka 8aad waxay ka qayb galaan imtixaanka qaranka waxaana sanadkan rajaynaynaa in arday badan inooga qayb galaan si sanadihii la soo dhaafay bay inooga qayb galeen waxaana iskuulka uu ka mid yahay iskuulada ugu ardayda badan magaalada Beledweyne marka loo fiiriyo dhanka ardayda waxaana marka ardayda laga soo tago tayada waxbarashada ay tahay mid aad u wanaagsan oo waxbarashadooda aad u wanaagsan tahay runtii waxa iskuulada kale uu kaga duwan yahay maalmaha Jimcaha iyo Khamiistan waxa baxa maadooyin si lacag la'aan ardayda loogu faa'iideeyo oo ay ka mid yihiin maadada fagaara ka hadalka maadada caafimaadka maadada saxaafadda iyo sidoo kale maadooyin kale oo luqadda Ingiriiska ka mid tahay oo si lacag la'aan maalmaha Jimcaha iyo Khamiistan iskuulka ugu baxo dugsiga ardaydiisa aad ku tirada badan waxa looga faa'iideeyaa inay laba bilood markii ka soo wareegatay imtixaan bilad laga qaado oo ardayga dhacana waalidkiisa la xiriiriyo oo la yiraahdo ardayga imtixaanku ku dhacay si ay waalidka iyo macallimiinta ay isaga warqabaan maamulkana aad baan ugu dhiirigelinaynaa shaqada uu iskuulka u hayo macallimiintana yihiin macallimiin wada howlkar ah oo isfahmayo si ardaydu wax u barayaan habka tayada waxbarashada ay aad u wanaagsan tahay marka loo fiiriyo iskuulada kale ee magaalada ku yaala iskuulkan wuxuu dheer yahay in xaafadda uu ku yaalo uu yahay inta badan ay ardayda ka timaado xaafadaha kale dheer iska yimaadeen tani ceel jaalle iskuulka loogu yimaado ardayda xaafadaha kala duwan ee magaalada ay ka yimaadeen ay wax ku bartaan runtii muhiimad gooni ay noo tahay dhalinyarta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Beledweyne waxbarashadooda iyo sidoo kale horumarkooda kaalin weyn aan ka qaadano oo iskuulka Al-Bukhari runtii sanad walba oo soo saaro arday 100 arday kor u dhaafayso taana ka dareemaysid wax qabadka iyo awoodda uu leeyahay inuu arday Soomaaliyeed iyo jiil Soomaaliyeed oo berrito mustaqbalka Soomaaliya anfici doona oo gobolka anfici doona magaalada anfici doona iyo guud ahaan Soomaaliya anfici doona inuu iskuulka uu soo saaro ardaydii ka qalin jabisay iskuulkan qaarkood maanta ay jaamacadaha ka qalin jabiyeen heerka labaad ee waxbarashada ee master degree iyo PhD ay diyaariyeen arday iskuulka ka baxday marka runtii aad baan TV-ga Jubbaland aan ugu mahadcelinaynaa inuu xaruntan nagu soo booqdo oo arkay sida aan ardayda Soomaaliyeed aan wax u barayno macallimiinta sida ay u shaqeeyaan iyo guud ahaan sida iskuulku u shaqeeyo Faransa TV-ga Jubbaland runtii aad u mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacaygu waa Cilmi Maxamuud Jimcaale runtii kamid ah macallimiinta iskuulka hoose dhexe Al-Bukhari runtii iskuulka waa iskuul runtii hayo arday da'deedu aad u yar tahay runtii iskuulka waa iskuul runtii macallin oo quality ay ka shaqeyso mar walbana jecel inuu bulshada wax u qabto runtii waa iskuul mar walba u taagan inuu bulshada dhexdeeda wax ka qabto oo soo saaro ubad markaas aad waxbarashada aad u tayo leh inuu soo saaro jecel waay runtii iskuulka mar walba حتى وحولها جلاس كوباد إلا جلاس كسديدات رنتي سنة دكسيات كجلاس كسديدات وحكي قريب قاعد امتحان شهادة وزارته رنتي سنة كان سوى ناقصنا أيوة نوجو بلاودي وحن رجينا إن هذول يرادو السنة دي صوص عضي السنة سكسي في عنه ونوجو الصعود إن هذول يرادو رنتي وحواي الحمد لله رب العالمين وكم أصلا معلمين آدو تيالا يوليبه حتى maamul aad u wanaagsan iyo wada shaqayn fiican ayaa ka socota iskuulka Al-Bukhari runtii ardayda uu soo saaran waa arday daayar markaasna waxyaabihii la soo baray mar walba ay ka dhex muuqdaan oo arday mar walba dadaalkoodu aad u sareeyaan runtii macallimiin ayagana sidoo kale aad u dhiiri aad u tayo sareeyda ayaa ka shaqeeya iskuulka runtii waa wax iskuul oo bulshada qaybadeeda kala duwan si fiican magaalada Beledweyne bulshada ku nool si fiican arday ugu tayo leedahay wayn waxa waaye runtii waxa waaye waxaan dhihi karaa iskuulka waa iskuul tayiisu sareyso macallimiin aad tayiisu sareeydan ay ka shaqeeydo mar walbana imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee wasaaradda ay qaaday galaaska 8aad mar walba way ka qayb qaataan ardayda iskuulka Al-Bukhari runtii waxa waaye
sanadkan wuxuu ku bilowday si wanaagsan hadduu ilaahay yiraahdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu sanada si nabad qabto sidoo noogu bilaabay wanaag noogu bilaabatana inaan ku soo gabagabina ayaan ka rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo taas ilaahay baan ka rajaynaynaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa ku mahadsan runtii haddii aan wax ka taabto macallimiinta iyo ardayda runtii macallimiin aad u wanaagsan iyo maamul mar walba ayaga waxbarashada jecel inay kor u wadaan ayaa ka shaqayso ardayda sidoo kale ayagana waxa waaye arday markaasna waxyaabihii ardayga mar walba shuruudihii looga baahdo iyo ardaynimadii ahay si wanaagsan ay mar walba u hagaajiyaan wayn ugu dambeyn Mustafa Cabdiwaaxid Maxamed oo ah maamulaha guud ee Al-Buqaari School ayaa si guud ugu warbixiyay iskuulka taariikhdiisa iyo inta dufco uu soo saaray iskuulka. Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan kan aad baan idinka mahad celinayaa bahda TV-ga Jubbaland oo nagu soo booqatay iskuulka Al-Buqaari. Haddii aan idinka warramo taariikhda iskuulkan wuxuu ku yaalaa xaafadda Nuur Xawaad qaybta Xawataako waxaa la furay iskuulkan 2010 bishii 16 wuxuu soo shaqeynayaa ku dhawaad ilaa 10 sano waxaa ka baxay dafcooyin fara badan sanad dugsiyeedkan 2020 wuxuu noogu bilowday alxamdulillaah heer sare heer wanaagsan iskuulka hadda shaqadiisu way noo socotaa alxamdulillaah waxaan ku dhex jirnaa xilliga shaqo oo gudanayno howlaheennii waxbarashadeennii iyo shaqadeena gudanayno ilmihiina fadhiyaan oo shaqaynayno macallimiinta ay wada joogaan wada caafimaad qabaan hawsha inay socoto soo marka insha Allah aad bay u wanaagsan tahay rajada ka soo haddii ilaahay naga badbaadiyo oon ka badbaadno biyo buuxooyinka waxaan inay si wanaagsan oo heer sare ah noogu dhammaan doonto sanad dugsiyeedkan oo 2021 marka insha Allah kolbo iskuulka wuxuu shaqeeyaa laba gelin subax oo qaybta shahaadiga ama sideedaadka ah iyo gelinka duhurkii ah ay galaan ilmaha dugsiga hoose ilaa iyo 7 waxaan ku shaqeynaa insha Allah iskuulkan macallimiin badan joogto macallimiin arday fara badan way ka aflaxeen sanadkii hadda ay arday fara ku dhawaad 63 arday ayaa noo qayb gashay imtixaanka dawladda alxamdulillaah ilaahay ma iskale way wada baaseen waliba natiijo fiican oo waalidiintii iyo macallimiinta ay ku farxaan ay wada keeneen sanadkan waxaan ka rajayn doonaa insha Allah in saas iyo si ka sii wanaagsan si ka fiicanba ay noogu hirgasho insha Allah khayr Allah ka dhigo Allah noo fududeeyo hawshan ku jirno waxaan u dadaalinaa waa ubadkeennii waa ilmaheenii waa ubaxii waddanka marka waxaan leenahay qof waliba kaalinta uu leeyahay ka qaato insha Allah waalidiintan waxaan kula dardaarmaynaa inay macallimiintu ku xirnaadaan ay la socdaan maqnaashadooda waxa ay qaateen cashiradooda waxa la siiyay buugga ma loo saxay in waalidiinta ay la socdaan oo macallimiinta iyo waalidiinta haddii isku xirnaadaan iyo maamulka wax walba u hagaagayaan arday kastoo xitaa iska maqnaashihiisa wax xal baa loo heli karaa laakiin haddii la iska warhaynin insha Allah waa waqtiga noo gaarowgeed waxaan leenahay antaas Allah ka dhigo khayr مشروعنا كل عام وأنتم بخير سنة دكسيتك إن شاء الله وحنوجو بفرمي سوى ونكسن وحنا الله سبحانه وتعالى كرجينا إنه قد ماضو سي شرفة ونكسن إن شاء الله محمد عبد الله حسين فرنسا جبلان TV بلدوينه